Alright guys, waxaanu ka hadlanaa course requirement. maxaad u baahan tahay course-kan marka aad soo gasho insha Allah waxaa jira arday bilowa oo laga yaabaa inaanay hore project kale usoo samayn ama application ama web application waxay doonaha noqoto aan soo samayn. Marka maxay u baahan yihiin? Kow, waxaad soo dhowlaan garaysanaysaa Node.js, Node.js, kadibna website kanaad imanaysaa nodejs.org. Node.js haddaad ku qorto waa first one-ka aad helayso. dad Node.js kaliyaata ku qorto waa first website-ka koowaad isaga ku siinaya. kadib kaasaad imanaysaa download latest kan halkan aad ku dhufanaysaa. Already aniga wuu i dhowlaan garaysan yahay, laakiin hadaan ku tusayaa download latest baad odhanaysaa. marka isaga ayaa kuu dhowlaan garaynaya setupka. haddaad u baahantahay inaad sida loo setup gareeya aad doonaysana kaliya boqolaal tutorial oo sida Node.js loo dhowlaan gareeya ayaa jira YouTube-ka. tag guys, adduunkan imanka wax walba waxaan video laga samayn oo aan jirin ma jiro. way fududahay markaa sida setupkiisa loo sameeyaana already wuu dhammaaday. let me show you how to do it. so markaa aniga ku tusayaba hadda. marka insha Allah kolley aniga wuu igu jiraa, laakiinse adaan leeyahay bal aad aragtid. marka Node.js latest halkan markaa download tiraahdo ayar baad la soo degaysaa, install garaynaysaa. marka weerise meye waa kan ku tuso guys. okay, waa kan hadda wuu inoo soo dhowlaan garaysmay. kadibna double click baad siinaysaa, install un baad siinaysaa guys. wax saas u adag maaha, waad install garaynaysaa. prepare to install buu leeyahay. waxaa laga yaabaa inuu waqti yaro qaadanayo ood yaro sugayso. waxaa keliyata wax allaale wax kale oo aad uga sii baahantay ma jiro. kadibna negas unbaad sii taabanaysaa, kadibna dhan unbaad odhanaysaa guys. marka aad dhammaystirto ayaa waxaad eegaysaa versionkiisa. already aniga wuu igu jiraa. hyper baan isticmaalaya. hyperka wuxuu ku fiican yahay command-ka. haddaad hyper.io aad terminal u baahantahay, cmd-ga wuu ka yara fiican yahay, wuu ka yara fudud yahay, waayo command-kiisa macquula. marka saasaad u isticmaali karaysaa. anigu kadibna imanka negas waxba odhan maayo. kadib way iska fududahay. YouTube-kaad ka helaysaa tutorial sida loo dhowlaan gareeyo. laakiin marka anigu no baan leeyahay, ayar baan iska xidhayaa, uma baahni. already wuu igu jiraa. marka finish baan iska leeyahay. laakiin markaad doonaysa inaad versionkiisa eegto Node-v baad odhanaysaa. versionkaad eegaysaa. waxaad arkaysaa inuu kuugu soo dhacay, uu kugu soo galay. ama cmd-ga isticmaal ama hyper terminalka isticmaal, laakiinse versionkaad eegi karaysaa. as well as waxaad u baahan tahay git. maxaa yeelay projectka GitHub markaad ku publish garaynayso goordhow war inaad git hadlaa. markaa git baad u baahan tahay. git waa inaad git dhowlaan garaysataa. waa kanaad dhowlaan garaynaysaa. already operatorkaad isticmaasho iyada automatic ku siinaysaa. eeg download hal click unbaad leedahay. ayar automatically iyada kuugu dhacaysa markaad click siiso. wax saasoo si badan maaha. keliyata haddaba kale waxaad u baahan tahay guys. okay, Node wayn haynaa, git wayn haynaa. okay, Visual Studio Code, VS Code baad leedahay. Visual Studio Code-kuna waa kan. VS Code-kaasna waad soo dhowlaan garaysanaysaa. isagana already download unbaad leedahay. button-kan unbaad click siinaysaa. already sida loo install gareeyana install unbaad siinaysaa. markuu kuu dhammaado waa fududahay. already waa kan, waa calaamada yar buu leeyahay. markaad intaa dhammaystirato wax kale ood u baahan tahay oo kale haddii ay jiro ama aad khaladaad kale aad la kulanto, insha Allah aniga waad ila soo xidhiiri kartaa. already group bayn leenahay, waad soo weydiin kartaa. markaa saddexdaa markaad soo dhowlaan garaysato projectka waad gudageli kartaa, waad dhisi kartaa. package-yada ayuunbaad wixii aynu samaynayno kolley kooraskaynu ku sheegaynaa oo aynu kaga hadlanaa sida loo setup gareeyo. waxyaabahaasoo dhan kooraska ayaad ku jiraan. markaa kooraskaad kala socon doontaa. marka kooraskana already waad ku jirtaa baan jeclahay ardayda. marka arday badan baa ii beginara oon weli laga yaabaa inaanay project qorin. wixii basicana insha Allah react ku saabsan iyo waxyaabaha kale Node.js kan ku saabsan basic iyo express. marka insha Allah casharana waan la soo wadaagi doonaa. ay khayr bay isku ognaa. aad baan idin salaamaya.